الله سبحانه وتعالى wuxuu inaga dhigay ummad muslimiin ah sidaas la mid ah waxa uu Rabbi subhanahu wa ta'ala inoo jideeyay wado iyo dariiq aynu marno miisaankeenna aynu wax ku qiyaasaynaana waa diinteena islaamka wax kasta oo diinteena islaamka ka hor imanaya qaadan mayno isticmaali mayno adeegsan mayno bal waynu isaga dheeraanay diinteena suubani ma ogola in qof insaan ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaameeyay lagu tilmaamo xayawaan iyo wax la mid ah Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim xaqiiqe insaan waxaanu abuurnay abuuritaan iyo samayn tii ugu fiicnay sidoo kale Rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay walaqad karramna bani aadama wa hamalnahum fil barri wal bahr dhabahantii insaan waanu karaameynay gabadha in wax la siiyo waa sharaf ixtiraam iyo naxariis ma ahin mid daanyeer iyo xayawaan iyo wax la mid ah mid toona lagu noqonayo Allah subhanahu wa ta'ala meelo fara badan ayuu dumarka ka hormariyay ragga taasina waa karaameyn iyo sharfid Allah subhanahu wa ta'ala markii uu ka waramayay siinta awlaada iyo bixinta deeqda awlaada waxa uu Rabbi subhanahu wa ta'ala yiri yahabu liman yashaa'u inathan wa yahabu liman yashaa'u dhukur Allah subhanahu wa ta'ala cidda uu doono waxa uu ku galadaystaa oo ku manaystaa dumar sidoo kale waxa uu ku manaystaa oo ku galadaystaa rag gabadhu baylahu ma adkaysan karto sida ninka oo kale mar walba dumarka waa in loo naxariisto oo la siiyo lacag iyo wax wal oo la siin karo oo lacag ka qiimo badan lacagta yarta ah ee aynu dumarka siinayno waxa ka qiimo badan oo ka sharaf badan ta aynu ka helayno iyaga oo ah nolol iyo deganaansho iyo naxariis ninka ragga ah waa kan dumarka markasta u naxariista ee ka fikira farxadooda kor u qaadidooda iyo sidii ay ku dareemi lahaayeen deganaansho iyo farxadan dhammaad lahayn ma aha kan sharafkooda meel kaga dhaca markasta iyo goob kastaba dumar waxaan ka farxinay ka sheegaya ogaada haddii ayna dumar jirin noloshu dhadhan iyo macaan mid toona may lahaateen Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay isagoo inoo tilmaamaya sida ay ragga iyo dumarku aanay u kala maarmaynin Rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dumarow idinku ragga waxaad u tihiin hu ragowna dumarka waxaad u tihiin sidoo kale hu nood garanaysaan waa dharka qofka insaanka ah dharku waxa uu ugu jiraa qaybta ugu muhiimsan ee noloshiisa dharku ceebtaada asturaan iyo cawradaada sidoo kale dhaxanta waad ka xidhataa sidoo kale wax kasta oo dib ah na way ka ilaaliyaan sidaas la mid ah in aanay dumarka iyo raggu marnaba kala maarmaynin laana qofku marnaba kama maarmayo dhar uu xidho ama uu xidho qof bilaa hu noolaan karana ma jiro sida la ajligeed dumarka iyo raggu Rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu ku tilmaamay inay yihiin dhar iyo hu inay isku yihiin oo ina kala maarmaynin marnaba walaalayaal maalmahan dambe baraha bulshadu wuxuu noqday meelo ay ku jiraan dad waxa ay sheegayaan iska hubinaynin ama aan oranayn diinteena ma waafaqsan tahay mise ma waafaqsana kaliya way hadlayaan si ay u helaan muuqaal dad tira badan ay daawadeen diintaada u tud mustaqbalkaaga adduuniya kaaga aakhira u tud walaal waxaan kugu nasteexaynayaa naftayda iyo naftaadaba in aanad cid kasta daawan indhahana waa lagu weydiin waqtigana waa lagu weydiin ciddii aad wax ka faa'iideysanaysa daawo laakiin cid kasta oo maanta diinteena ku ciyaaraysa diinteena ku tumanaysa haddii aad loof iyo like u saarto
ood u sheergarayso dhegeysato daawato wax alli iyo wax faa'iido oo ka soo galaya ma jiraan haddii aad love iyo like u saarto ood u sheergarayso dhegeysato daawato wax alli iyo wax faa'iido oo ka soo galaya ma jiraan walaalkaana waxaan ugu nasteexaynayaa hablaha iyo haweenka sharafkooda ku ciyaaraya ee dhaleecaynaya ee markasta inuu iyaga caayo har iyo habeenba u taagan walaal ilaahay ka cabso gabadh way kula dhalatay waad dhali doontaa adigana way ku dhashay gabadh la'aanteedna shaarka quruxda badan leh ay xidhan tahay wallahi maad xidhnaateen dumarka ammaantooda iyo toosintooda in aynu baranin ku dadaanaa loo baahan yahay looma baahno dumarka inaynu ceebayno oo aynu dhaleecayno oo aynu cayno